daqiiqada ka hor sagaalkii barqanimo ee saaka ayuu bilowday weerarkan lagu qaaday hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho. Durbaba markuu dhacay qaraxani waxyeeladiisa koobaadi waxa ay soo gaartay ciidankii joogay hotelka la weeraray, gaadiidkii wadada adeegsanayay iyo ganacsigii ka agdhawaa halka bartilmaameedku uu ahaa. Inta la xaqiijiyay 14 qof ayaa ku geeriyootay weerarkan oo ay ku jiraan ciidankii ilaalada ahaa ee hotelka la weeraray. iska caabin ay sameeyeen ciidanka ilaalada u ahaa hotelka kadib kooxdii weerarka soo qaaday waxa uu suura gashay inay qarxiyaan mar labaad gaari nuuciisu ahaa Nooho. waajiga goobtan oo qarxi labaadii uu ka dhacay waxyeeladiisu waxay gaartay wariyaal dhaawacmay iyo ciidankii iska caabinta kula jiray kooxdii weerarka soo qaaday. inta kadib waxa goobta soo gaaray wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed waxaana uu sheegay in 10 qof ay ku geeriyoodeen weerarkan, 51 kalena ay ku dhaawacmeen. shabaabka la dilay waa 4 qof. waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u daayar daadooda lagu qiyaasay 16 ilaa 20 jir wax ka yar waa wiilal Soomaaliyeed la marin habaabiyay fikir khaldan la geliyay dadka gelinayo dad waaweyn ah oo sheeganayo culimo ah ay mas'uul ka yihiin marin habaabintaas ay ku sameeyeen wiilashaas. ciidamada amniga waxaa kaga dhintay 3 qofood nin booliis ah iyo 2 ciidamada niis ah. ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo Ilaahay dartiis u dhintay. Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu jannatul firdaws uu geeyo. waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga 5 qofood oo ciidamada niis ah iyo 3 qofood oo ciidanka booliiska ah. sidaas la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa albaabka oo hotelka banaankiisa laamiga Makal Mukarrama maqaayad ku taalay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen dhaawac buu u geystay. ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaaladii ay noo soo gudbiyeen waa 10 qofood oo dhimasho ah. dhaawaca labada hospitaal ee Madiina iyo Daarul Shifa la geeyay marka la isku darana waa 51 qofood oo dhaawaca. laba malaaq oo kamid ahaa malaaqyada Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale ku geeriyooday qaraxan maanta ka dhacay hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho. malaaqyada geeriyooday waxa ay kala ahaayeen malaaq Malabow, malaaq Isaaq Kerow oo ahaa malaaqa Garwaale. waxa kale oo qaraxa ku geeriyooday malaaq Cabdirashiid, malaaq Cabdisalaan oo isaguna ahaa malaaqa Yantaar. labada malaaq ee geeriyootay midkood waxa uu ahaa ka ugu magac dheer malaaqyada Koonfur Galbeed, halka midka dambana uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka malaaqyada Koonfur Galbeed. meydkooda waxa loo qaaday magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed waxaana lagu wadaa in halka lagu aaso. mas'uuliyadda weerarkan hotelka Dayax lagu qaaday ee magaalada Muqdisho waxa sheegatay xarakada Al-Shabaab waxaana ay ku sheegeen war qoraal oo ay soo saareen baraha internetka. rasmiyan halkan daqiiqada ka hor waxa ay ahayd goob lagu caweeyo oo dadku waxa ay ku joogeen jawi nabdoon. koox hubaysan ayaa afaafka hore ee hotelkan waxa ay ku soo dhufatay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. tiradooda ayaa lagu sheegay inay ka koobnaayeen 4. saraakiisha dawladda ee qaabilsan ammaanku waxa ay sheegeen in 4tiiba halkan lagu dilay oo ay ahaayeen daayar. Calaadan Muumin, Goobjoog TV, Muqdisho.